Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waani salaamay dhammaan bahda ku xiran janaalka Mutusalp. Soo dhawaada dhammaantiin. Salaan kadib maanta waxaan rabaa in video cusub inaan kaga hadlo. Videogan wuxuu quseeyaa ardayda dhigata secondary-ga khaasatan fasalka form 3. Videogan waa maadada technology-ga. Badanaa ardayda ma helaan practical inta badan sababo jira awgood in aysan helaynin computerkaas ha noqdo desktop ama ha noqdo laptop. Marka maanta waxaan fududeynaynaa sidee loogu isticmaalaa applicationada qaar anagoo isticmaaleyno taleefankeena. Insha Allah kaasaan ka hadli doonaa. Haddaa janaalka ku cusub tahay subscribe saar. Haddaa videogan ka hesho ama uu ku cajibiyo like saar. Siina share garee, sii gaarsii asxaabtaada insha Allah. Videoga maanta aan ka hadli rabno waxaa la dhahaa barnaamijkan buugga waxaa lagu qaataa technology-ga. Khaasatan barnaamijkan waxaa loo yaqaanaa shirkadda Microsoft soo saartay. Barnaamijka waxaa la dhahaa Microsoft PowerPoint. Ardaydana aad ay ugu baahan yihiin because jaamacadaha markay bilaabaan oo kale waxaa loo diraa presentations inay soo jeediyaan. Barnaamijkan hadday aqoon u lahayn ma sahlanaanayso ama ma fududaanayso inay barnaamijkaas soo gudbiyaan ama presentationka macalinku u diro ay soo gudbiyaan. Marka waxaan sameyn doonaa video yar oo ku saabsan sidee loo isticmaalaa barnaamijkan oo presentation ama PowerPoint-ga loo yaqaano ee soo saartay shirkadda Microsoft. Barnaamijka waxaan ka raadinaynaa haddaa haystid taleefanka ama taleefanada Android-ka ku shaqeeyo sida Samsung-ka, Itel-ka dhammaantood waxaa ka raadin doontaa Play Store-ka. Haddii aad haystid taleefan oo iPhone ama iOS operating system waxaa ka raadin doontaa App Store-ka. Marka App Store-kan furi doonaa. App Store-ka markaan furo waxaan ku qori doonaa meeshan WBS. Markaan qoro waxaan leeyahay search. Barnaamijka taleefankayga hadduu ku degsan yahay waa ujeedaan WBS Office PDF Docs qoran wuxuu leeyahay open. Laakiin hadduu barnaamijkaas taleefankaaga ku jirin wuxuu ku dhihi doonaa installed ama ku shub ama get uu ku dhihi doonaa. Marka waxaan leenahay open waa furi doonaa. Markaan furno barnaamijka qaabkan u soo bixi doonaa. Waxaa sameyn doontaa markaa calaamada pluska meesha ku qoran ku dhufan doontaa. Waxaa rabtaa inaad sameysid barnaamij noocyo badan uu leeyahay. Number 1 waxaa ka ugu horeeya writer. Barnaamijkan qoraalada loogu talagalay waana word processor ama saa u taqaanid Microsoft Word waaye. Midka ku xigo presentation aan ugu qoran asna waxaa loo isticmaalaa barnaamijka loo yaqaano PowerPoint-ga. Midka ku xiga kale oo saddexaadna waxaa la dhahaa spreadsheet. Saa u naqaano barnaamijkan waxaa lagu dhex isticmaalaa Excel waa barnaamij loogu talagalay xisaabaadka in lagu sameeyo. Sidoo kale PDF asna barnaamij kale waaye. Iyo sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijkan document scanner. Dokumentiyada scan loogu saartaa. Anaga ujeedkeena ugu weyn oo videogan oo duubeyno waxaa waaye inaan presentationka isticmaalno. Presentationka see loo isticmaalaa waan ku dhufan doonaa. Presentationka wuxuu leeyahay marka laba qaab. Buugga waxaa ku qoran marka aragtid inaad presentation sameysid laba nooc waa u sameyn kartaa. Template diyaarsan oo shirkadda ay ku soo kaydisay inaad ku diyaarisid ama template ama blank document inaad sameysatid oo adiga ku gaara. Macnaha template-yadana meeshan ugu jeedid waa template diyaarsan. Nooc walba wuxuu leeyahay ciwaan. Marka waxaan sameyn doonaa blank document-ga tagi doonaa. Blank document-ga markaan tagno aan ku dhufano wuxuuna dhihi doonaa meeshan waa meesha aan wax ku qori lahayn. Waa isla arki doonaa xiisada kale insha Allah sida template-ka kale loo isticmaalo. Hadda waxaan ka bilaabi doonaa blank document inaan sameyno. New blank document marka aragtid inaad sameysid saan ku soo bixin doonaa. Isaa ku hagayo wuxuu ku leeyahay double tap laba mar ku dhufo to add a title si aad ciwaan ugu soo darto. Ma fahmin? Marka tusaale naga yahay anaga meeshan waxaan ku qori doonaa ciwaanka laba maraan click siin doonaa. Kadibna waxaan qori doonaa chapter ama chapter madeen waxaan leenahay PowerPoint. Waxaan leenahay
PowerPoint. So PowerPoint markaan qoro ciwaanka aan kaga hadlayo waxaa loo yaqaanaa presentation. Asna presentation aan leeyahay. So markaan dhaho presentation kadib waxaa u jeednaa insha Allah qaabka waxaan baran doonaa xitaa slideska loo sameeyo, animationka ay sameynayaan dhammaantood waa baran doonaa. Documenti waa noo diyaarsan yahay. PowerPoint waa chapterka aan qaadanayno, subchapterka aan qaadan doono ama subtitleka aan qaadan doono waxaa waaye presentation waaye. So markaan rabo in aan ku soo daro another slide kale markaan rabo in aan ku soo daro calaamadda plus-kaan taaban doonaa. Kadib markaan taabto meeshan waxaa ii soo baxaya WPS Office iyo WPS Office iyo kuwo kale oo badan. Muhiimadeedu waxaa waaye inaan isticmaalo WPS-ka oo sawirka aan wadanin kaasaan isticmaali doonaa. Meeshan waxaan ku qoraana marka ciwaankii aan soo qoranay oo subtitleka noo ahaa. Meeshan waxaan ku qoraynaa waxaan leenahay presentation maxaa la dhahaa aan qeexaynaa. Presentation maxaa la dhahaa. What is presentation? Waxaan weydiin doonaa Google-ka. What is presentation? So markaan Google-ka weydiino oo search aan dhahno wuu noo soo bixi doonaa what is presentation. So presentation waa kanaan soo koobiyeysanayna. Okay, copy aan leenahay. Waxaan ku laaban doonaa application-keena. Meeshaan aan ku paste gareyn doonaa. Waa riixi doontaa. Allow paste aan leedahay. So si aan u ogolaano inaan paste gareyno. So waxaan leenahay paste. Halkaan aan kusoo paste garey. Kan kalena haddana laba mar aan click siin doonaa. Asna kan aan ku paste gareyn doonaa bas. Waa riixi doonaa. Waxaan dhihi doonaa paste. Waa ujeedaa. So marka meeshaan markaan marayno waxaa noo diyaarsan slide-ka qaybtiisa koowaad waa noo diyaarsantaa oo ciwaanka ah. Qaybtan waxaa waaye qaybta aan wax kaga hadli doono insha Allah. Sidoo kale hadda waxaan fahmaynaa hadda waxaan isla fahnay sida template-ka loo soo geliyo. Lambar 2 slide cusub sida loogu soo daro. Lambar 3 waxaan fahmaynaa sidee loo save gareeyaa. Save gareynta wax kale maaha. Waxaad tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay done. Midigteeda waxaa ku qoran calaamad cajalad oo kale follow by disk cajaladii hore la isticmaali jiray oo kale calaamadaas oo ku dhufan doontaa. Kadib waxaa noo qoran save as. Calaamadan PPTX waa extension-ka ee leedahay barnaamijkan loo yaqaano PowerPoint-ga. So meeshan waxaan ku qori doonaa ciwaanka. Waxaan dhihi doonaa test 1 tijaabadii koowaad. Kadibna waxaan dhihi doonaa path-ka ama wadada lagu save gareyn doono aan furan doonaa. Local-kaan furi doonaa. So meeshaan aan ku save gareyn doonaa. Haddii aragtid waxaad samayn kartaa new folder aan fure. Kadibna waxaa ku qoranay test yaa ku qoranay. Kadibna waxaa leedahay okay. Marka okay dhaadid waxaa samayn doontaa okay aa leedahay meeshaan aan ku save gareynayna. Kadibna waxaa leenahay save. So barnaamijku wuu noo save garoobay. Insha Allah cashir noocan oo kale intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.